waxaan horta nasiib daro ayaan ku tilmaamayaa wixii shalay ka dhacay dalkeenna waxaana leenahay dalkeenna inaan ka dhicin baan ku waaninaya cadow badan baan leenahay cid badan baa inaga faa'iidaysan doonta nabadan maanta aan hayno waddo dheer baa loo soo maray iyo qarannimadan maanta aan hayno dhibaatooyin badanna waa loo soo maray haddii maanta ay naga weeqanto oo naga furantana sida looga soo kabmaayo aad bay u adkaanaysaa qiimaha ku bedelan kara waa la isku qaban karaa siyaasadda iyo hadalka laakiin inaan wada hadallo waxaan hadal ku dhammayn karayno sidaan shalayba sheegay inaan cunfi u adeegsano oo carruurteenna lagu lugooyo taa waan ka talinayaa shacbi weynahana waxaan leeyahay xisbi kasti oo naga mid ah xisbiyadayada ka anagu madaxa ka iyo kuwa kale cod bay idinku leeyihiin dhiiggiinna inaad daadisaan idinkuma leh shacbi weynaha waxaan leeyahay ninna dhiiggiinna ha u daadinina difaaca qarannimadeennu ma dhiiggeenna u daadin karnaa xantaysiga xisbiyada nin kastiba ololihiisa iyo siduu sheegayo isagii u taallaa waxaan leeyahay arrintaa iyada ah arrin dadkeenna lagu dago iyayna noqon waan dadweynahana waxaan leeyahay waxaa maanta aan haysanno qurux badan baan haysanaa hareeraheenna wax ka shidmaya waan ognahay dad baa halkeennaa inay maalin isa soo taagaan u rafaadayo soo gaari laha waa kuwii shalay aan ka soo tagnay inaku inaan bedello waa inaanu ka taxadirnaa ninka mas-uul ah ee ku taliya nabadgelyo darraha la sameeyo oo kursi baan rabaa ummaddan dan uma hayo maslaxadna uma hayo ummadda waxaanu leenahay inaan u tartanno warqad codkaa inay ku ridaan majaraha loo maro waxaa laga hadlaa had iyo jeer madaxweynaha doorasho diidan horta doorasho baa anaa bilaabay doorasho cidda bilowday anay ahayd ee muddadii ku-meelgaarka aan haa allah u naxariistay madaxweynaheenu hor awlantay aan hadalkaygii waad haysaan raggiina joogay somalilan doorashay ku iibsami waan muddo la korkordhiyey ku iibsami mayso dib u dhaca doorashooyinkan duruufaa keenay waxaa laygu calaamadayaa anigoo keliya anigu ma keenine duruufaa keenay maron iyo khilaafyo badan baa keenay maalin dhexdee anigii anigu soo jeediyeen yidhi toos baanu galno waa la ogaayo xisbiyadaa yidhi toosu gali mayno talooyin baa inooga yimid ajnabiga waxaa la yidhi ha lagu sameeyo dib ha loo saxo xukuumaddu mar kastiba ta ogol weeye wax kastoo maslaxad ay u aragto inay taageerto dib in loo saxo baanu ogol lahay diiwaangelinta haddii la seexi karo oo deeqbixiyaashu sidaa ay soo jeediyeen baanu ogol lahay doorashana mar kastiba xukuumaddu oo diyaar waqti kastoo suuragal doorasho ay noo noqoto xukuumaddu oo diyaar waxaa kale xukuumadda u diyaar tahay khilaaf kastoo jira in laga wada hadlo miiska wada hadalka la isku yimaado khilaaf kasti oo jira inaan isugu nimaadno miiska wada hadalka waayo waxaan aaminsanahay ummaddani wax birimageyda ah ay wada leedahay inay wada ilaalisay leedahay waa nabadda iyo jiritaanka ummadda cidnaba in lagu gacan siiyo maahin wada jiritaanka iyo khilaafkan golayaasha ka jira khilaafku wuxuu la kowsaday markii shirguddoonka la dooranayay waad ogtihiin journalist baad wada ahayd shirguddoonka oo maaragtaanay qolada mucaaridku beriga ah ay afduubeen anuuna xisbigayga kala tashan laana ogolaaday inay saddexdaasiba mucaaridka ay ahaadaan khilaafku ilaa markaasuu ayuu la soo tis qaaday oo soo socday khilaafkii unbaa socda oo kolba sawir qaadanaya waxaananu soo jeedin lahaa waan iskhilaafsannahay hala noo mudaharaado wax alla wax maslaxada oy shirguddoonkaa ugu jira iyo sumcada ugu jirta ma jiro golahooga inay iskugu yeedhaan xaafid iyo mucaaridba iyo kaa golo ay u yihiin oo xukuma inay gartaan inay waxba wada xukumaan oo golahooga yihiin ayaanu soo jeedinayaa isla markaana ay turxaan saaraan golayaasha baarlamaanooda weligood ba iskhilaafaan laakiin cidda hogaaminaysa ayaa haddana daweysa
وإلى بوزيشن كايسكول دقي أنا والنقطة بوزيشن leadership وهجامنا وقولها نيجي نقوله جي هاي أوياه تانا أروح أكون بورينيا تاير شريته وحيابي هالكن كدعي قلت مرخاتيجي والله فريبة أو ضبضيبة بالله حدلو أنا كابا كدم بين والله قريبة قل يكون بوجادنا يدت كيد انتهي إنا يدنتانا وما نركي يشيل قدوم كابا يكون بوجادنا ويندرهم أنا وان كحوم يدت كانت إني قف إن غير نتل موكل قف إنه إن غير دعوة عمل موكل دت كيننا وحنا معنا الحين إن لو صوك عيو أو بوك لو سميه ويكي عيدا كوغنا نسكور كانوا عشان وحلو باهية معهم وحان لها هاي عقلوا إنو شقيو أيام كنت لنا إياه وحان هاي أنو مدحوينها هاو قولها وكيل هذا شرقدون كوغنا دويما دو الباب كيغاس كما حلو وفرية هاي ديار بانو هاينا نوضح دو سيدان دالكنو هاقاتينينا سيدان وحو صحينا وحصلنا وقوله وحان ددوينها وشاقيا سوماليا كبيرني لحنكي سوماليلاند بان كله وقلنا انتونكي صور كينو ما انت مالين وكفي عيه مجرو سوماليلاند ما انت ويبدا جوجتا وحكستي او سوماليلاند غدهيغا كلا تفاريقينايا شعبيgeena inaan loo sheegin oo inay dhigu raaricin baan kula talinaya haday laga furfuranto mar dambe guntintaas ma xilmayso shacbigeenu wada jir inakoo wada jirnaba wax ku ahaanayna inakoo wada jirna ayaan himiladeena aqoonsigaan ku raadinayna caalamkan ku gaari doonaa inakoo kala jirna waxba kuma gaaleen waxaan leeyahay shacbi weynaha ninka idin jecel ee dalkan jecel waxa weeye ka wada jirayeen yiraahdo ninka idin nacabi waa ka kala tagayeen yiraahdo waa ka isku kiin diraa waxaan u malaynayaa 2002 giiban bari aan ka hadlayay khayriyada ayaan idhi Soomaaliland cid u talisay baahantay cid u abtirso ma baahno Soomaaliland cid u talisay baahantay maantana cid u abtirso ma baahno xabad basasha waa qurux badan tahay laakiin hadii la dhilo waxay noqon dabaylaha kala qaada mar dambe la iskuma soo celin karo Soomaaliland waa in laga ilaaliyaa in loo miiqsiibo sida basasha oo dadkeega la isku fidneeyo iyagoo waxba ka jirin